qaanuunka caalamiga ee badda uu kolos badda hore u qaybsh waa nidaamsanta meesha anu hadda u bixin biyaha qaranka ama waxa la yiraahdaa territorial water kasbar 12 miil badeed waay oo u dhigata 20 kilomitir sharcigaas wuxuu leeyahay biyahaas dawladdu waxay ku leedahay awoodda dhulka ay ku leedahay mid lamid ah ay ku leedahay meel socota si fiican taas horta meel haba aan dhigno biyaha ku xiga waxaa ugu muhiimsan EEZ منطقة dhaqaalaha gaarka ah leeyahay ilaa 200 gaari kabacdina waxa ku xiga waxa la yiraahdo continental shelf oo 150 meel ina ah okay meesha marka mashaakil ay isugu tagtay haddaad fiiriseen xuduudayna la ogaayay oo hadday aan ka hadlayo labadaas dawladood ay dhigtay حدود تنزانيا تينا اسكويس كينيا مركا waxay naqatay badda inay ka xiratay qodobka toddobaad ee qaanuunkaas faqradiisa lixaad waxay sheegaysaa dawlad kasta kama xiri karto badda EEZ-ka iyo continental shelf kama xiri karto 12 kuma jirto mujada sidaas awgeed Kenya maadaama ay xirantay lana rabo in wax loo furo 12 waa lama taaba ka xagga layka laga bilaabo xariiqadana lagu soo jiifiyay 12 ka xagga laga bilaabo صح 12 waa milkiyada dhulka ay lama tahay dhulkan Soomaali taaba karto ma jiro halkaas laga bilaabay إريدها الله فرع إدان ليرادو كي أنا وان وين هي أدينا توا كدود أرنتا لكن وان إنه وحان سلاين ده يدك تنزاني ولا يجلسني دونا تنزاني حاجة لك صوت تعود دونا حاجة بوت كذا الله ريع دونا إذا كان بوت كذا هالكا مركز على إدان الله فرع دونا ودو هذا واحد من ده بوت كذا كلي على صار ريحي كواس ولا سكدافون مرينا مركا meesha la soo qaluuciyo wax loo qaluuciyo wax kala ban cidaas loo rabay inay hesho iriday ka baxdo sharcigaana qaba ya qaba Soomaha laakiin 12 ma ahna ka xagga laga bilaabo